xafiiska jidadka ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa magaalada Wardheer ka bilaabay jid dhererkiisu dhan yahay 60 kiiloomitir oo isku xidhi doona degmooyinka Wardheer iyo Lehel iyo Cube gobolka Doolo. Mas'uuliyiinta maamulka gobolka Doolo iyo kuwa degmooyinka Wardheer iyo Lehel iyo Cube ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Doolo mudane Cabdulaahi Deeq Xasan ayaa u kurgalay habsami socodka bilowga jidka jeyga ahaa isku xidha Wardheer iyo Lehel iyo Cube waqti xaadirkan dhismihiisu marayo xaqitaanka iyo baahinta carrada wejiga koobaad. Haddaba jidkan ayaa hawshiisa wada xafiiska jidadka ee dowladda deegaanka Soomaalida kaasi oo lagu soo gabagabeyn doono muddo 3 bilood ah sida ay sheegeen howlwadeenada xafiiska jidadka ee gacanta ku haya jidkan jeyga ah isku xidhi doona degmooyinka Wardheer iyo Lehel iyo Cube oo dharar ahaan gaadhaya 60 kiiloomitir ayaa marka la soo gabagabeeyo noqon doona mid waxtar weyn u leh bulshada labada degmo isla markaasina sahli doona dhanka isu socodka gaadiidka iyo kan bulshadaba. Gudoomiyaha gobolka Doolo iyo gudoomiyaasha degmooyinka Lehel iyo Cube iyo Wardheer oo warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida SRTV u waramay ayaa sheegay in jidkan uu isku xidhi doono labada degmo ee gobolka Doolo waa Wardheer iyo Lehel iyo Cube. Rahmaan Rahiim maantay waxaan bilownay wadada isku xiraysa magaalada Wardheer iyo magaalada Lehel. Wadadan waa wada aad iyo aad ugu baahnaa shacabku qowleeyo badan oo go'dan ku jira ay muhiim u tahay labadan magaalo laftigooda socodkooda uu muhiim yahay isku xiri doonta hadii la yiraahdo. loodkan hadda waa loodka koowaad waa 60 kiiloomitir oo 10 kiiloomitir waxay dhaafi doontaa magaalada Lehel hadii la yiraahdo laakiin targetkeedu waxa weeye Shalaabo oo gobolka Qorxey ah iyo degmada Wardheer in isku xirto sidaa weeye markii loodkan la dhameeyana insha Allah taala loodka xiga ayaa loo gudbi doonaa si guud marka wadadan waxay isku xiri doontaa Shalaabo ilaa Wardheer ujeedadeedu waa sida targetkeedu loodkan hadda waa loodka koowaad waxay ka mid tahay arintani dadaalada xukuumadda iyo xisbiga ay ugu jiraan ka jawaabista shacabka oo aad ogtihiin dhowr sano ka hor wadooyinka magaalada Wardheer soo galay oo dhan xarunta gobolka ah inaanay jirin wax maaragtay si toos ah u baxsan horey waxaad ogeydeen in loo bilaabay loo dardargeliyay wadadii Qabdaar ilaa meeshii la yiraahdo Wardheer oo shaqo fiican ka socoto Galaadi ilaa Wardheer iyadana la isku xiray wadada shaqadeeda si fiican u socota Buuhoodle ilaa Wardheer baa iyadana maaragtay hadda la soo gabagabeeyay kilisaadka clearance-gii maanta waxaan u joognaa waa Shalaabo ilaa Wardheer in la isku xiro runtii waa dadaalo waqtiga yar marka la eego waa shaqo aad u ballaaran waana aragti ka timid baahida shacabka in laga jawaabo dhinaca wadooyinka iyo socodka halkaas laga soo shidaal qaatay mustaqbalkan waxaan rajaynaynaa oo hadda noo dhiman oo baad goobkeeda aan gali doonaa Booq iyo Wardheer iyo Danood iyo Wardheer labadooda isku xirta hadii alla idmo marka sidaas 6 wado lagu gabagabeeyo waxay ka dhignaanaysaa shaqo aad iyo aad u ballaaran oo shacabka baahidiisa wax weyn ka qabanaysa hadii la yiraahdo aad iyo aad baad mahadsantihiin. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Maryam Caydiid Maxamed gudoomiyaha degmada Lehel iyo Cube. Marka koobaad Allah subhanahu wa ta'ala ayay mahad oo dhan u sugnaatay. Marka labaadna waxaan u mahad celinayaa xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida xafiiska jidadka oo ka jawaabay runtii baahi loo qabay bulshadu muddo dheer ay u qabtay wadadan oo isku xiraysa magaalada Wardheer iyo magaalada Lehel degmada Lehel iyo Cube xarunteeda magaalada Lehel waxa go'doomay santaro sida santarka hog duwaag ama hog barwaaqo oo kale oo bulshadu ay adeegi ama asaskii ay waayeen oo adeegi gaadiidku oo oga go'ay wada xumo darteed waxaa farxad weyn maanta noo ah inay bulshadaas adeeg xumadu ay saameysay ee maanta dib u heli doonaan adeegoodii oo wadadan maartay baahi ku salaysan baahida bulshada ama baahi shacab maanta dib loo bilaabay oo runtii baahi badan loo qabo shaygu wuxuu macna leeyahay markay bulshadu dareemayso baahida ay u qabto iyo qabashadiisu macna leeyahay waa wada ay bulshadu baahi badan ay u qabto aad u soo dhaweynayso ugu faraxsan tahay annaguna aan la dareemayno kula la dareemayno baahida haddana aan farxadda aan la dareemayno aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Maanta waxaa la bilaabay wadada isku xidha Lehel iyo Wardheer oo ahayd wadadii tooska ahayd markii hore bulshadu uga faa'iideysan jirtay taasoo xidhantay muddo ilaa hadda 20 sano aan la isticmaalin ama dhowr iyo 10 sano sababaha u xidhantana ay ka mid yihiin ciid fara badan oo wadadan xidhay iyo wadadii cidhiidhi noqotay bulshadii oo ka wareegisay wada kale oo aan magaaladii loo leexleexanay sidoo kale ay go'doomeen santaradii u dhaxeeyay Lehel iyo degmada Lehel magaalada Lehel xarunteedu tahay degmada Lehel iyo xarunteedu tahay Lehel iyo magaalada Wardheer taasoo santaradii u dhaxeeyana ay go'doomeen oo ay noqdeen meel aan la mareynin alxamdulillah xafiiska jidadka maanta wuxuu bilaabay jidkaas
dayactirkiisii oo qaadan doona muddo 3 bilood ilaa 4 bilood taas ay ka faa'iideysan doonaan bulsho aad u tiro badan ilaahay baana mahad iskale waxayna ka mid tahay dadaalada dawladdu ay ku dadaalinayso ama ay u wado isku furka jidadka iyo isku socodka bulshooyinka ay ka mid tahay wadadii inta xanuuneyn maanta dib loo furo muddo 3 bilood kadibna ay shaqadeeda dib u noqoto waxa ilaahay lagu mahadiyo aad iyo aad baan u mahadsantahay bulshadana waxaan ugu kula dardaaranaa intaan u dhaxaysa inay tiimkaas si fiican oo qurux badan ay ula shaqeeyaan السلام عليكم ورحمة الله. dhinaca kale qandaraaslaha iyo injineerka gacanta ku haya oo ku socday xafiiska jidadka dowladda deegaanka Soomaalida oo iyana geesooda halkaas kula hadlay warbaahinta deegaanka ayaa sheegay in muddo 3 bilood ah ay ku soo gabagabeyn doonaan jidka jeega ah ee isku xidha degmooyinka Wardheer iyo Lehel iyo Cub. بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa Salebaan Mahdi Ciidid waa shirkadda Salebaan General Construction waa shirkadda fulinaysa ee mashruuca fulinaysa insha Allah ilaahay horta nagu asro waxaan rajaynaynaa insha Allah taala waqtiga loogu talagalay waliba waqtiga ka yar inaan ku dhameynaa rajaynaa hadii ilaahay insha Allah taala mashruucu waxa loogu talagalay 6 bilood xafiisku talagalaa filaya laakiin waxaan rajaynayaa 2 bilood ama 3 bilood hadii ugu badan 3 bilood inaan ku soo dhamaystirno annagoo ilaaleyna quality-ga iyo intii qaabka loogu talagalay aad u ilaaleyna insha Allah waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsaha badan inayna muddo 3 bilood ugu qaadanin quality-ga aan ilaalino sida ugu dhaqsaha badan insha Allah taala maanta shaqadii waan bilownay kaydkii wada yeelaan wax naga maqan ma jirto marka insha Allah taala waxaan soo dhameynaa insha Allah taala. Assalaamu calaykum magacaygu waa engineer Sadam Ali Abshir waxaan ahay injineerka gacanta ku hayn doona hadii alla idmo wadadan aan maanta u taaganahay waxaan maanta u taaganahay dhagax dhigi iyo bilowgii shaqada wadada isku xidha Wardheer iyo Lehelow wadadan oo cabir ahaan gaaraysa ilaa 60 kilomitir ya waxa lagu sameeyaa dayactir maanta waxa loo taagan yahay shaqadii almost inay bilaabato wadadan oo ahayd wadooyinkii hore loo isticmaali jiray laakiin intii muddo ahaydba xidhnayd oo u xidhnayd cilado ay kow ka yihiin ciid fara badan iyo geedo iyo dhir ka baxay intaba wadadan ay u go'donsanaayeen magaalooyin ay sii mari jirtay waxaa lagu wada hadii alla idmo muddo kooban in shaqadeeda lagu soo gabagabeeyo bulshadana ay dib u isticmaasho